بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن داودياشا قدرنتا iyo qiimaha inaga mudan ee Allah ba ku xiran channelkan YouTube ka Ismaaciil Aqila ku soo dhawaada barnaamijkeena nolosha saxaabada oo insha Allah ta'ala aan ku soo qaadano guud ahaan nolosha saxaabada qeybaheeda kala duwan ka hor intaan barnaamijka guud galin fadlan walaal hadaad nagu cusub tahay channelka subscribe inoo saar say dhiirigelinayna u noqoto sidoo kale like ta saar barnaamijyadeena haddii aad ka heshay siina share garay si dad kale ama asxaab kale ay ugu faa'iideystaan waxyaabaha xiisaha badan ee halkan aan ku soo baahino gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka koowaad ee hela waxyaabaha xiisaha badan ee halkan aan ku soo baahino maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena nolosha saxaabada jaceelkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee Usaama ayaan ku soo qaadan doonaa sidaa daraadeed qadarin iyo maamuus aad u weyn ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam u hayay Ummu Ayman aad iyo aad ayuu u jeclaa wuxuu u ixtiraami jiray sida inay dhashay oo kale oo ay tahay hooyadiis waxa uu rasuulka inta badan oran jiray hadal macnihiisu ahaa Ummu Ayman waa hooyaday marka laga reebo hooyaday kadib waxay ka hartay ahlu beydkayga waa taa hooyadii sharafta badnayd ee dhashay wiilkii nasiibka badnaa ee uu sida weyn ugu farxay dhalashadiisa haddaba haddaan ogaanay Usaama hooyadiisi waxaa misna haboon inaan baranno aabihii Usaama waa saxaabiga sidoo kale uu aadka u jeclaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee la oran jiray Zayd bin Harith sidoo kale aabihiisa loogu magac dari jiray magaca rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka hor intuusan imaan islaamka dhinaca kale Zayd wuxuu ka mid ahaa xog hayanadii rasuulka ee uu sirihiisa ku qarsan jiray sidoo kale ku soo barbaaray gurigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam sharaf iyo wanaag waxaa Zayd ugu filan in magaciisa lagu xusay Qur'aanka Kariimka iyadoo muslim kasta oo aqriya Qur'aanka uu xusayo magaciisa isla mar ahaantana ajar iyo xasanaad ka helaya xuska iyo sheegitaanka magaciisa saan horay u soo sheegnay guud ahaan asxaabta rasuulka waxay ku farxeen bishaaradii dhalashada Usaama bin Zayd farxad weyn ayay sidiisoo kale ayay u qaadeen ayaan horay ugu farxin maxaa yeelay tarbiyada ay ka qaateen rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa tilmaamaysay inay ku farxeen dhammaan wixii farxad geliya rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidoo kale ay dhibsadaan wuxuu dhibsado asxaabtii waxay ugu magac dareen Usaama magacan wiilkii la jeclaa oo uu dhalay kii isna la jeclaa bixinta magacaasi kama ay ahayn asxaabta mid ay macno la'aan ay isaga yiraahdaan ee waxa ay u yiraahdeen maadaama uu jeclaaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidaas la mid ahna uu jeclaa aabiisa Zayd bin Harith ayaa magacaasi ay ugu doorteen guud ahaan barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa inta barnaamijkan midkiis xiga aynu ku kulmi doono sidaas iyo amaana Allah